Sideed caadooyinka maalinlaha ah ee nolosha beddela oo keeni kara farxad aan la soo koobi karin. Farxaddu waa maskax, si aad dhab ahaantii u dareento, waa inaad naftaada hormarisaa. Way wanaagsan tahay inaad wax u qabato dadka kale, laakiin farxaddaadu waa inayna weligeed noqon mid labaad. Marka aad u janjeerto farxaddaada, waxa aad si fiican u awoodaysaa in aad farxad iyo wanaag ku faafiso agagaarka. Kaliya ha ku raaxaysan guulaha waaweyn, ku raaxayso kuwa yaryar sidoo kale. Kaliya ha ku mahadin wax aad rabtay, waad heshay, sidaas oo kale u samee nolosha aad ku nooshahay, dadka aad jeceshahay. Kuwa soo socda ayaa 10 caadooyin maalmeed oo aad la qabsan karto, si aad noloshaada ugu beddesho mid qiimo leh oo qanacsanaan leh. Waayo aragnimadu waa arrin, maaha waxyaabo. Lacagtaada aadka u adag waa in lagu kharash gareeyaa aruurinta xusuusta kugu waari doonta inta aad nooshahay. Kuwaas waxaa lagugu xusuusan doonaa weligood, farxad ka sii waarta oo ka badan tii lacagta iyo maalka ay heli karaan. Ku eli mahadnaq maalin kasta. Mid ka mid ah mantrasyada ugu fiican ee lagu hogaamiyo nolol fudud oo qurux badan waa inaad jimicsi samayso mahadnaq maalin kasta. Allaha ku mahadnaq waxa aad haysatid oo dhan, isaga ku mahadsan inuu dad kugu xeeran oo ku jecel oo ku sharfaya. Waa inay caado noqotaa inaad dareento waxyaalaha wanaagsan ee noloshaada. Haddii ay tahay erey naxariis leh, fal yar ama daqiiqad nabdoon, u mahadnaq dhammaan. Jir ahaan firfircooni. Firfircoonida jirka kaliya kama faa'iidayso jirkaaga, laakiin sidoo kale waxay kaa ilaalinaysaa qanacsanaanta maskaxda. Jimicsigu wuxuu soo daayaa hormoonnada farxadda leh ee loo yaqaano endorphins, kuwaas oo ku gelin kara niyadda wanaagsan. Taas ka sokow, joogista firfircoonida waxay dhiirigelisaa hurdo wanaajinta iyo shaqada garashada, taas oo si wada jir ah u horseeda maskax farxad leh. Dhis xiriir adag. Ku xidhnaanta kuwa aynu jecelnahay, qoyska iyo saaxiibada aanu jecelnahay, waxay kicisaa dareenka lahaanshaha iyo taageerada niyadeed. Waxayna siiyaan raaxo waqtiyada baahida. Ku dadaal sidii aad xiriir macno leh ula samaysan lahayd iyo waqti tayo leh kuwa aad jeceshahay, si aad u xoojiso xiriirka aadna kor ugu qaado fayo-qabkaaga guud. Ku eli fikirka. Isku day inaad 5 daqiiqo ka badbaadiso noloshaada mashquulka ah si aad isugu dheelitirto tamarta jidhkaaga. Ku dhaqanka fekerku waxa uu dejiyaa jidhkaaga iyo maskaxdaada. Waxay hoos u dhigtaa walbahaarka la xidhiidha mustaqbalka iyo saamayntiisa. Taas beddelkeed waxay kaa dhigaysaa mid si fiican ula socda waxa kula jooga wakhtigan. Fikirku wuxuu nadiifiyaa maskaxdaada oo wuxuu awood kuu siinayaa inaad ku raaxaysato nolosha si buuxda. U soo eli oo caawi dadka kale. Waxay ahaan lahayd dareen cajiib ah in dunida wax uun lagu soo celiyo. Ficil kasta oo naxariis iyo deeqsinimo ah ayaa u duceeya bixiyaha iyo kan qaataba. Iskaa wax u qabso ama ficillo yaryar oo maalinle ah oo naxariis ah ayaa kor u qaada dareenka iyo qadarinta, taas oo noloshaada ka dhigaysa mid faraxsan oo macno badan leh. Horay u sii hurdo nabadeed. Hurdo tayo leh ayaa lagama maarmaan u ah maskaxdaada iyo jidhkaaga. Waxay muhiim u tahay nidaaminta shucuureed, shaqada garashada iyo caafimaadka jirka. Samaynta nidaam hurdo oo joogto ah waxay ka caawisaa jidhkaaga dib u buuxinta, waxayna yaraynaysaa xanaaqa iyo walbahaarka. Kala hormarinta nasashada waxay wanaajisaa niyadaada iyo adkaysigaaga, taasoo kuu sahlaysa inaad la kulanto caqabado maalinle ah oo leh maskax deggan. Ku eli erayada xaqiijinta maalin kasta. La hadal naftaada. U xaqiiji naftaada waxyaalaha wanaagsan iyo erayada kor u qaadaya maalin kasta si aad u wanaajiso kalsoonidaada iyo guud ahaan wanaagga. Erayada xaqiijintu waxay la dagaalamaan fikradaha xunxun, waxay ku xasuusiyaan qiimahaaga, waxayna kugu dhiirigeliyaan inaad sii wadato. Ku elinta tan maalin kasta waxay kobcisaa wadahadal gudaha ah, waxayna dhistaa asaas xooggan oo kalsooni iyo yididiilo leh.